waxa dhacda runtii marar fara badan in adigoo isticmaalaya social media kala duwan inaad ku aragto runtii sawiro aad la yaabto sawiraantaasi iyo qaabka loo hagaajiyo adigoo runtii in badan xiiseeya amba rababa inaad ogaato sawiraantaasi iyo qaabka loo hagaajiyo haddaba waxaan kugu soo dhaweynayaa kooraskana cusub ee noociisu yahay Lightroom Mobile Editing kooraskaas runtii noqon doona miyaad ku baran doonto noocyada kala duwan ee runtii sawiraantaada aad ugu dhex hagaajin karto mobilka smartphone-ka adigoo isticmaalaya abka noociisu yahay Lightroom. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. magacaygu waa garad xagga adiga daawanaysaana waa channelka umrasa.com waxaan mar laad ku soo dhaweynayaa kooraskeenii cusba ee Lightroom Mobile Editing ugu horeyn horta kooraskan wuxuu noqon doonaa mid ku baran doonto noocyada kala duwan ee mobilka gacanta aad ugu dhex dhiganta sawiraantaada haddaba in yar aan idin horeysiyo bal kooraskan iyo waxyaabaha aan ku baran doono ay waxay tahay ugu horeyn ku baran doona in isweydiino haddaan u baahan isticmaalo abkaasi Lightroom-ka waxyaabaha laga baahan yahay iyo soo kale qaabka loo soo day karto waxa soo kale ku dhigan doona siyaabaha kala duwan ee toolska uu leeyahay Lightroom-ku aad u isticmaali karto xaga soo kale ku baran doono in marka qaar ko aynu si caadi u hagaajino sawiro inuu ku fahmi doona bal siyaabaha kala duwan ee sawiraanta aad ugu dhex qurxin karto application-ka gudihiisa xaga soo kale ku baran doono noocyada kala duwan ee loo isticmaalo presets-ka diyaarsan ee lagu hagaajiyo sawiraanta iyo soo kale qaabka u soo gashan karto Lightroom-kaaga ku soo dhaw kooraskeena cusub ee Lightroom Mobile Editing hadda lagu soo horeysiin doona bal haddii aad rabto inaad isticmaasho abkan Lightroom-ka ee ku idgariso sawiraantaada talo maxaa laga baahan yahay ugu horreyn waxa looga baahan inaan haysano mobile smartphone xaga soo kale looga baahan haysano sawirkii aynu ku idgaran lahayn application-ka gudihiisa intaasi haddii aad haysato aanu nimaadna su'aasha abkan waxa uu ku shaqeynayaa kaliya iOS-ka mise waxa uu ku shaqeynayaa xataa mobileska Android-ka runtii waa ku bushaareynaya abkan waxa uu ku shaqeynayaa sida caadiga mobileska Android-ka iyo soo kale mobileska iOS-ka amba iPhone-ka labadaba waa ku shaqeynaya haddaba su'aashan kale waxay tahay talo qaabka aynu soo degi doonaa application-ka waxaad tagi doontaa hadba ku jira amba hadba mobilka isticmaalka ay ku xiran tahay Play Store-kaaga amba se App Store-kaaga anu hadda waxaan guda gali doonaa App Store-ka kadib halkan waxaan ku qori doonaa application-ka magaciisa oo ah Lightroom-ka kadib waxaan oran doonaa markuu ii soo baxo install ayaan oran doonaa amba se download gareysan doonaa kadib markaan soo download gareystaan waxa hadhow tolo igu soo bixi doonaa qaabka kadib markaan ku dhufano waxaan sameyn doonaa waxaan ku xidhin doonaa account ayaan ku xidhin doonaa Gmail-keena ayaan ku xidhin doonaa kadib markaan ku soo xidhinana waxaad arkaysaa inuu qaabkan uu inoogu soo baxay kadib halkaas ay ka bilaabmaysaa shaqada ah inaynu fahno bundleskan amba yani toolskan iyo qaabka ay ku shaqeynayaan application-ka gudihiisa hadda application-kiina markaynu soo furanay ee uu qaabkeena ugu soo baxay waxaan u baahanahay inaan fahansanahay waxyaabaha faraha badan leh ee bartay nooga soo baxay iyo waxay noo qabanayaan ugu horeyn haddaba laba nooc ayuu isugu jira application-ku amba se laba features-ka uu leeyahay laba nooc ay isugu jiraan qaar waxa weeye qaar lacaga oo lacag aad bixinayso si aad u isticmaasho qaarna waxa weeye qaar free haddaba kuwa lacagta bal qaar aan kaaga sheego imika barta waxa ku qoran qaybta ku qoran tahay Bible-ka waxa dusheeda ku arkaysaa calaamad star amba se xidiga macnaheedu waxa weeye in feature-kaasi uu yahay si aad u isticmaasho in lagu baahan lacag inuu bixin qaarna waxa weeye qaar free hadda inta markaynu ka nimaadno waxa soo kale xaggan waad ku arkaysaa laba icon oo midna kamarad u yahay midna uu yahay icon-kii gallery-ga haddii markaasi ka gallery-ga aynu ku dhufano kadib waxaan awood u leenahay in sawirkan ka soo gashano halkan ku dhufan doona calaamada gallery-ga kadib sawir ka soo dooran doona gallery-geena sawirkii markaa uu noo soo geli doono bartan library-ga oo kaybiga sawirka barta inooga muuqdo amba se waxaad awood baad u leedahay inaad tiraahdo waxaan u baahanahay sawir iguma jiro gallery-ga hadda sawirka aan sawiraba adoo ku fadlan bartan ku qoran tahay kamarada kadib runtii isticmaali doona features gaar ah oo si gaar ah u leeyahay Lightroom-ku kuwaasoo ka saacido runtii in sawir qurux badan aad qaado kadib sawirkii si caadi ah u sawiri doona hadda imika inaga sawirkan edit gareynay waan soo gashanay oo waxa uu inoogu jira xaggan library-ga kadib markaan ku dhufano qaybtii library-ga oo sawirkii kan uu yahay waxa hadda sawirkii diyaar u yahay inuu edit gareysno inagoo isticmaali doona toolskan faraha badan leh ee lagu talagalay in lagu edit gareeyo sawirka